sida adin muuqata waxaa goobta xaadir ku ah inta badan xubnaha xiriirka Soomaalida kubadda cagta guddigiisa fulinta oo ka kooban 5 qof iyo sida la sheegay hal qof oo kamid ah oo dibadda safar ku maqan oo si muuqaal qabatay sida warqadda beer abuurka ku cadeeday waxaa lagu sheegay in kooramka guddiga fulinta uu dhan yahay taas marka waxay cadeynaysaa meedii hortiisa in guddiga fulinta manjarosay halka tahay taasuna ay wax ka jirin waxaan rabaa kale inaan u cadeeyo saxaafadda waqti laga joogo ilaa 6 bilood guddiga fulinta xiriirka Soomaalida kubadda cagta oo mas'uul ka ah hay'adda kubadda cagta hagaajinteeda iyo horumarinteeda waxay ku howlanaayeen in hore loo dhaqaajiyo hay'adda sida ogtiin horyaalkii socday wuxuu ku gabagaboobay si rabshad ah ka bacdi waxaan isku daynaa wax kasta in la hagaajiyo tartamadii la qabto horena loo socdo taas way dhici kari weysay guddiga fulinta oo u xil saaran in ay hay'adda horumarinteeda ka shaqeeyaan u xil saaran markii ay doodo badan galeen wada tashi badan galeen waxa uu cadaatay in gudoomiyihii hore ee xiriirka kubadda cagta inuu khalkhal u horseeday kubadda cagta Soomaaliya taasna maanta 12 bisha waxay go'aansadeen in shaqada laga joojiyo oo sidaas lagu badbaadiyo xiriirka kubadda cagta waxaan rabnaa inaan halkan ka cadeyno in horyaalkii koobka Janan Daawud la bilaabay si dhaqso ah waxa kale oo ballan qaadaynaa xogayahana aan ku amraynaa inuu diyaariyo macallinkii xulka qaranka Soomaaliya waxaan sameyn doonaa tijaabooyin si aan uga qayb galno ciyaaraha caalamiga ah ayadoo waajib naga saaran tahay in kubadda cagta in la ciyaaro kubadda cagta magac ma aha waa la in la ciyaaraa waa la ciyaari kari waayay waxaana u soo bahay gudoomiyihii hore xiriirka kubadda cagta sidaas ayaa guddigu meesha looga saaray waxaan cadeynaynaa marka in aan shaqada ay sideeda u socon doonto tartamadiina ay socon doonaan si dhaqso ah koongareskana waxaan u sheegaynaa inay u diyaar garoobaan xogayahana uu la wadaagi doono iyo kaaliyaha xogayaha wixii shaqaa oo ku saabsan in hore loo socdo goboladana sidoo kale aniga u sheegaynaa in ay u diyaar garoobaan waxaan marka guddiga fulintana ka codsan ku buurinayaa ku bogaadinayaa sida sharafta badneed ay u badbaadiyeen xiriirka Soomaalida kubadda cagta waxaana muuqata xiriirka kubadda cagta waa la wada yaqaanaa dadka ka tirsan waa 10 qofood halkan waxaa fadhiya 5 qof qof kamid ah wuxuu ku maqan safar sidaas waxaa ku maqan 4 waana manjaroso 100% waxayna go'aansadeen sirka saaka dhacay markay arkeen khalkhal iyo been abuur iyo in waxa ahaay hay'adaha nala shaqeeya been loo sheegay in xiriirka la badbaadiyo waxaan ka codsanaynaa dadka waxaan dhawaan sameyn doonaa haddii la yiraahdo in aan qabano forum ku saabsan horumarinta kubadda cagta dadka daneeya kubadda cagta oo Soomaaliga ah oo khibrad ah shirar baan u qaban doonaa Ilaahay haduu yiraahdo dalka waxaan si fiican u gaarsiin doonaa kubadda cagta waxaan ka shaqeyn doonaa kubadda cag oo wax la qaybsata dalka diriska iyo adduunka intiisa kalaba sidaad ogtiin lama sakaafo ma ciyaarin oo soonkeena kaaf ma ciyaarin hal ciyaar oo carabtahan ciyaarnay ayadana waqti gaaban la ciyaaray intaasna waxay ku imaanaysay in hogaaminta ay aad u liidato waxaan waa mahadsantihiin waxaan rajaynayaa insha Allah dhamaanteen waan isu hambaleynaynaa kubadda cagta Soomaaliyana waxaan caawa marka laga bilaabo maanta oo ahayd 12 bisha 12aad 2021 waxaan leenahay waxay raacday wadada saxda ahayd waana mahadsantihiin